السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي دمانتينا ميل والبعض وذا جوكتان maanta waxay soo bandhigaa warar laga yaabo in aad weliga maqlin qaybta tobanaad ila daawo. nin musician ah oo la yiraahdo Fernand Airbilot intuu dhiman wuxuu dhahay xitaa haddaan dhinto waxaan jeclahay in xaaskeyda wajigeeda in aan daawado. markuu dhintay dawladda sanamkan ay u sameysay. nin la yiraahdo Umar oo u dhashay dalka Japan waa ninka ugu horeeya oo Quraanka u fasiray luqadda Jabaaniga. magaciisa Umar ma ahayn laakiin markuu islaamay ayuu baxsaday Umar Mita. gabar takhtarad ah oo u dhalatay dalka Brazil mar walba ay gurigeed ka maqnaato tuug ayaa soo gala gurigeed wuxuu ka dhacaa. marka ugu dambeys waxay sameysay viruska HIV mis viruska AIDS-ka ayay cirbada ku soo buuxisay guriga ku wareejisay. meeshan waxay ku dhajisay tabeelo oo ku qoran iska ilaali. dagaalka labaad adduunka dalka Japan wuxuu go'aamiyay in xayawaanada oo meesha xadiiqooyinka ku jiraan dhan in ay sunsiyaan oo wada dilaan. waayo waxay ka baqeen in ay soo fakadaan oo dadka laayaan. xayawaanadii dhan sun ayaa cuntada loogu daray way cuneen way wada dhinteen dhamaantood. laakiin maroodiga uu diiday inuu cuno cuntadaas oo sunta leh baahi ay u dhinteen. ninkan wuxuu aaday isbitaal ku yaalo Uganda mise Uganda. marka la baaray waxaa la leeyahay xabadkaada waxa ku jiro baranbaro. marka waa in aqliin lagu sameeyo oo baranbaradaas laga soo saaro. ninkii ma degdegin wuu ka diiday wuxuu aaday India. meesha ayuu isku soo baaray waxaa la leeyahay baranbaradu waxay ku jirtay geedka mise makiinada oo X-ray la lahay. makiinadan ay ku jirtay baranbarada maahina xabadka kuma jirin. Louis Olsen da'diisa waa 80 jir wuxuuna ku guuleystay bakhtiyaar nasiibka. wuxuu helay $50 milyan. marka la wareystay wuxuu dhahay qof 80 jir ah uma baahno intaan oo lacag ah. wuxuu dhahay lacagtan way iga soo dahday laakiin qofkii fikrad ii keenay lacagtan waxaan ku sameeyay haddii uu ii sheego waxaan siinaa $1 milyan. fikrad oo lacagtaas ku bixiyo yaa u haayo. gabadhan waxay u dhashatay dalka Malaysia waxayna ku nooshahay Australia. bangigeed ayaa waxa ku soo dhacay lacag khaldan. macnaha bangiga wuxuu soo diray lacag gaarayso $4 milyan. isla markii $1 milyan waxay ku bixisay boorsooyin kali. $2 milyan waxay ku gadatay guri. laakiin hadda waa la qabtay boorsooyinka waa la celinaa iyo gurigana ninkii lahaa loo celinaa mise shirkadda lahayd ayaa loo celinaa. 1919 waxaa soo baxay magaalada New Orleans nin oo dadka dilaayo. saxaafadda waxay u bixisay Aximan waayo dadka wuxuu ku dili jiray masaar. ninkii wuxuu soo dhigay ogeysiis wuxuuna dhahay cawada qof ayaan dilaa laakiin meesha oo musiga jazz lahay meesha ku shidan uma dhawaanayo. habeenkaas magaalada dhan waxay noqotay musiga jazzka. baararka xataa waxay soo ijaarteen kooxo oo musigaas jazzka la yiraahdo tumo. codadka qosolka oo ka maqashaan filmaha iyo barnaamijyada kaamirada qarsoon codadkaas dhan 90% waxaa la duubay 1950. macnaha codadkaas dhan mise qosolkaas dhan waa qosolka dad mar hore dhintay. oh no. nin Ingiriiska u dhashay website-ka eBay ayuu wuxuu ka gatay Xbox oo qiimihiis gaarayo $700. muddo kadib baqsha ayaa u soo dhacday. baqshadii markuu furay wuxuu arkay sawirka oo Xbox-ka. sawirka gadaashiisna waxaa ku qornaa waa mahadsan tahay in aad sawirkan naga gadatay. ninkii wuxuu dareemay inaa la dhacay. maxkamadu tagay dadkii oo mise website-kii qofka soo saaray sawirkaas ayuu dacweeyay. maxkamada markay fiiriyeen arrinta waxaa la leeyahay adiga ayaa khaldan waayo website-ka sawirka hoostiis waxaa ku soo qoray waa sawir Xbox oo run ah ma aha haddaa gadanaysid wax adig ku taalo waay. wiilkii arrintiis caanay noqotay TV-ga lagu soo deeyay. qof walba waxaa leeyahay in iska ilaaliyo waay intuu wax gadanin in oo iska fiiriyo waay. kadib dukaan oo alaabta elektrooniga gado ayaa wiilkii soo wacay wuxuu dhahay kaale anaka ku siinayno Xbox oo free ah. intaas ayaan soo bandhigay. waxaan rajaynayaa ka faa'iideen share like subscribe ilaawin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.